Safaaradda Soomaaliya ee dalka Pakistan waxay idin soo gudbinaysaa fariintan ka hortagga caabuqa COVID-19. Safaaradda ayaan u socdaa. Caabuqa COVID-19 waa jira. Ma ogi tallaabooyinka ay safaaraddu qaaday. Safaaradda oo og halista cudurkan ayaa soo gelisay mashiinka caabuq dilaha markii muwaadinku safaaradda soo galo. Muwaadiniinta ayaa dhex maraya mashiinkan ayagoo gacmaha kor u taagaya, jirkana wareejinaya si caabuqu u dilmo, isla markaana halka ku nagaanaya 20 ilbiriqsi. Taxadarka oo la badiyayna muwaadinka waxaa la siinayaa jeermis dile. Kadib ayaa muwaadinku safaaraddu galaya. muwaadiniinta ayaa qoraal ahaan u daalacan kara fariimaha ka hortagga caabuqa COVID-19 ayadoo kuraasta martidana la ilaalinayo kala fogaanta. muwaadiniinta aan wadan qalin si foomiska u buuxiyaan waxaa la siinayaa qalin hal mar la isticmaalayo. caabuqa ayaa weeraraya habdhiska neefta ee bini'aadamka, waxa uuna yaraynayaa oksijiinta jirka. bukaanka neefta ayaa ku dhagaysa caabuqa ayuuna u dhimanayaa. muwaadin fadlan raac tallaabooyinka xirfadlayaasha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka. gacan qaadka jooji, gacmaha dhaqo, afxir gasho oo ilaali naftaada, qoyskaaga, saaxiibada iyo dhammaan bulshada kugu hareeraysan.